hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta waxay mar kale shixnado macaawina u dirtay shacabka Soomaaliyeed ee saameynta ay ka soo gaartay colaadaha qaraar ee ka socda gobolka Sool si gaar ah magaalada Laascaanood iyo deegaanada ku dhow. Shixnadan macaawinada ah ayaa isugu jirta qaybaha kala duwan ee raashinka kuwaas oo markab lagu rarayo iyo daawooyin oo iyagana diyaarado lagu daabuli doono si dadkaasi loo gaarsiiyo. Gargaarkan hore waxaa dalkeena ugu deeqay dowladahan saaxiibka nahay ee Jeena iyo Turkiga, waxaana xusid mudan in sidaan oo kale bilihii u dambeeyay hay'adda gargaarkii ugu badnaa ay gaarsiisay shacabka Laascaanood kuwaas oo isugu jiray daawooyin, raashin iyo dhar, waxaana Muqdisho ay keentay dad badan oo rayid ah oo colaadahaasi ku waxyeeloobay si caafimaadkooda lagu baxnaaniyo. Deeq Suleybaan Yuusuf, la taliye sare ee arrimaha bini'aadanimada iyo xuquuqda aadanaha ee hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa ka warbixiyay gargaarkan. maanta si aad arkaysaan waxaan joognaa xaruntii baqarada hay'adda masiibooyinka qaranka. Si aad arkaysaanna waxaa socota daabulaynta raashinka loogu talagalay maaragtay in baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay tabaalaysay dagaalada iyo maaragtay barakaca iyo abaaraha iyo daadadka ayaa maaragtay loo gurmanaya. maantana waxaan u gurmanaynaa gobolka Sool insha Allah taala. raashin baanu halka ka daabuleynaynaa baqaradan oo ku yaala ka soo horjeedka dekedda. hay'adda masiibooyinka qaranka ee Sodma waxay maanta ay daadgureynaysaa raashin dhan 500 oo tan oo ka kooban bariis, qamadi iyo bur. waadna u jeedaan halkana maanta laga daabulaya insha Allah. meesha ay ku socotana waa iyadoo waxay sii maraysaa Boosaaso laga soo daabuleynaya dekedda Boosaaso kadibna toos ayaa Laascaanood loo geynayaa iyo baadiyaheeda iyo meelaha ay u soo barakaceen u badan yihiin dadka goobaha soo barakacay insha Allah taala. waana waajib qaran oo dawladda federaalka saaran iyadoo gudanaysa u adeegidda bulshadeeda meel walba ay joogaan. runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay maanta inaan hawshan ka qayb galno. waxaa kaloo iyadana farxad inoo ah iyadoo uu ila joogo agaasimaha caafimaadka iyo agaasimaha humanitarianka hay'adda labaduba ay runtii ilaa saaka ilaa maanta aanu saacadda u taagannahay sidii aan hawshan u soo dhammaystiri lahayn. waxaa iyadana sharaf inoo ah maanta inaanu dawooyin aanu iyaduna ka rarayno gooni ah oo iyaduna diyaarada lagu qaadayo oo toos insha Allah taala Laascaanood loo geyn doono haddii la yiraahdo. inaan u mahadceliyo dawladda China oo runtii naga caawisay hawshan sidaad arkaysaan. iyo waxaa kaloo rabnaa inaan u mahadcelino hay'adda IHH dawladda Turkiga oo runtii ayaguna kaalin libaax leh hawshan ka qaatay. waxaan si guudna rabaa inaan ugu mahadceliyo wadamadan saaxiibada nahay oo runtii noo soo gurmada waqtiyada ay ay hawlahan nagu furan yihiin. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.